diyaarado joog hoose ku duulaya ayaa maalmihii u dambeysay lagu arkayay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sool. diyaaradahan oo ah nooca qoomaatiga oo kaca oo loo yaqaan helicopter-ka kuwaasi oo dul haabaya meel aan saas uga fogeen meelaha reer guuraagu ay degaan. diyaaradahan ayaa ujeedkoodu yahay saaminta gobol lagu sheegay inuu ku jiro shidaal iyo macdano kala duwan. shirkadda African Oil oo laga leeyahay dalka Sweden iyo shirkadda kale ee reer Norway ee DNO International ayaa goob kaliya oo shidaalka laga saaminayo labadaba waxay heshiisyo kala duwan la galeen maamulada Somaliland iyo Puntland aagaas oo ku asteysan yahay dhagax yar oo leh calaamadda Nugaalwan. labada shirkadood oo ah kuwa shidaalka qoda ayaa isku maanaafsan meelaha shidaalka ay ka qodayaan kadib markii meelo isku mid ah laga iibiyay labada shirkadood in ay ka sameeyaan saaminta shidaalka oo ku yaala gobolka Sool iyadoona ay labaduba shirkadoodba heshiisyo la galeen maamulada Somaliland iyo Puntland. goobtaas waxaa dowladda hore ee Soomaaliya heshiis shidaal saamin ah kula gashay shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo ConocoPhillips. meesha shidaalku ku jiro ee la isku hayay ayaa waxaa isku haysta Somaliland iyo Puntland oo labadaba ah laba maamul oo aan aqoonsi caalami ah haysan. shirkadahan ayaa mar walba waxa ay lacag fara badan siiyaan cidda markaa gacanta ku haysa dhulkaasi, taas ayaa keentay in dagaalku ku soo noqdo deegaanada Sool iyo Sanaag. shirkadahani waxa ay isku dayayaan sidii dhulka shidaalku ku jiro looga saari lahaa dadka iyagu degan. dhagax yar oo leh calaamadda Nugaalwan ayaa waxaa la hoostiisa ka buuxa sida la sheegay shidaal fara badan. dadka reer guuraaga ah ayaa cabasho ka muujiyay diyaaradahan oo ay sheegeen inay baqdin gelisay dadka iyo xoolahaba, balse dadka deegaanka ayaa iyagu sameeyay iska caabin iyadoo dadka ku dhaqan deegaanadaasi ay soo bandhigeen raadad muujinaya goobihii ay qodeen diyaaraduhu oo kaga tageen agab kala duwan. waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka hadlaya arrimahaasi. diyaaradahan baalka dhulka marinayo oo geelii jajabay oo arigii diday oo caruurihii argagaxeen oo haddii ilaahay ka dhigo wax alla waxay yihiin aanan aqoon. dalka annagaa iska leh, annagaa ilaashanna, cidina noogama sarrayso, cidna wax kama weydiino. wixii noocaa ku saabsan oo ku soo xadgudba oo aan sharci ku soconayn iyo fasax ku soconayn oo dalka ku soo gelin oo ay diyaaradaha hadda iminka nawaalay ay ka mid yihiin inaana waxba kala hadhayn. awoodda aan leenahay inaana waxba kala hadhayn. diyaarad haddii ilaahay ka dhigo adaafaysa oo dhulka baalka marinaysa oo argagixiso samaysay u adkaysan mayno, una dulqaadan mayno. dalkana annaga iska leh, cidna wax ka weydiin mayno. waxaanu haddaba adduunka maqashinaynaa ummadaha caalamka aanu maqashinaynaa hadday nagu soo noqdaan diyaaradahaas aanu dib u aragno inaana waxba kala hadhayn. waan idifaacayaa raggiina goobta isugu yimid oo doonaya inay difaacaan dalkooda. waxaan u sheegaynaa adduunka iyo dadka daraynaya nabadgelyada adduunka in laga ku soo xadgudbay oo diyaaradahaasi oo horeba loo sheegay oo doonaya inay dhulka qaataan oo gurtaan oo ay ruuxaasi asaarahaasi ay ka mid yihiin oo ay soo saareen iyagu asaaraha. waxaan u sheegaynaa inay maanta kabacdi haddii ay yimaadaan khasaare kala kulmi doonaan. midda kale waxaan u sheegaynaa dadka Sool iyo Sanaag wataa dhaqaalihiinni iyo waddankiina wixii laga guranay. waxaan rabnaa goob kasta oo goobaha aan joogno ka mid ah oo goob kasta oo la baarayo in lagu diyaargaroobo oo la iska difaaco dadka tuugada. dadka meesha isugu yimid oo difaacanaya dalkooda iyo deegaankooda difaacanaya. diyaaradahaas ku soconaya dalqaafka iyo xadgudubka oo tuugada ku shaqaynaya waxaanu leenahay hadday nagu soo noqdaan oo aan caalamka u sheegayna hadday nagu soo noqdaan tallaabo sharcigaanu ka qaadan. waddanka waa lagu soo guuray waxay ka marayeen kii ka maraya dukaanka labadaba wuu leeyahay. haddii aan ka hortagnay waa kan qalabkii aan ku qaban ka marayay maalintii waxay laga soo saareen watii ay soo tusayeen. waxay ka hadlayaan dad meelaha ka hadlaya wuxuu leeyahay dadka deegaanka naga war hayaa fasax baan ka wadnaa. waa beento, cidna ma soo marin, cidna wax kama weydiin. dad calooshu shaqaysta oo meel kale ka yimid iyo dad ajaanib ah dadka guranaya kana misaalan mayno. ma cadda halka ay ku dambeyn doonaan dhambaaladan ay iswadaarsanayaan labada maamul ee salka ku haya khilaafka saaminta shidaalka ee deegaanada Sool iyo Sanaag, balse waxaa muuqata in khilaaf dhanka soodinta ah oo weli salka ku haya arrimo dana dhaqaale barkan u dhaxeeyo labada maamul.
hase ahaatee iminka weji dhaqaale riixasho muujinaya mukhtaar cabdi jaamac SBC TV magaalada Laascaanood.